Korneyl Gabra oo ah sarkaal Itoobiyaan isla markaana la shaqeynayay urur goboleedka IGAD dadka siyaasadda doorsana ay sheegayeen inuu saameyn weyn ku lahaa siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in loo magacaabay xil cusub kadib markii dhawaan laga qaaday xilkii uu ka hayay arrimaha Soomaaliya isla markaana uu qaabilsanaa urur goboleedka IGAD xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Maxbuub Macalin ayaa u magacaabay Korneyl Gabra la taliye sare oo dhanka siyaasadda ah isagoona kala talin doona xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Korneyl Gabra ayaa horey waxa uu uga tarsanaan jiray xafiiska fududeynta arrimaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta ee Soomaaliya waxaana inta badan dadka Soomaaliyeed ay ku eedeyn jireen inuu saameyn weyn ku lahaa siyaasadda dalka Soomaaliya isla markaana uu qayb ka qaadanayay khilaafaadka iyo waxyaabaha ka jira dalka Soomaaliya dad badan ayaa markii la bedelay Korneyl Gabra waxay u arkayeen inay u tahay fursad Soomaaliya maadaama uu sanadihii ugu dambeeyay saameyn weyn ku lahaa arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya dhawaan ayaa xilkaasi laga qaaday iyadoo qaar dad badan oo Soomaaliyeed ay tallaabadaasi soo dhaweeyeen